السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال وعن أو وناكسن ميل البؤات عالم كجوبتان هالكاني وشافي ميديا أنا قلنا هو شافي عشي علي أونستي. داوديال ميل آد غرف بدن جوي آد غرف بدن iyo neecaw aad u carfaysa dhaxdeeda ayaan idinka soo salaamayaa. barnaamijkeena daawadayaal waa qaybtii labaad oo aan kaga hadlayno ciyaartooygii buglaha ka soo bilaabay isla markaasna qaranka Soomaaliya u soo ciyaaray. qaybtiisa labaad ayaan doonaynaa daawadayaal inaan maantana aanu idiga sheekayno. Maxamed Umar Muftin wuxuu ka mid yahay ciyaartooydii qaranka Soomaaliya oo soo ciyaaray isla markaasna heerarka kala duwan soo maray. qaybtiisa labaad ayaan jeclahay daawadayaal inaan guda galno. soo dhawow Muftin. شافعي آدي كاغا مهد علينيا soo dhaweyntii aad ii samaysay waan dhawahay in aan macnaha kaaga warramo qaybtii labaad. aad ma santahay waxay noo joogtay adigoo mar inta ka baxay kooxdii doorka ka galay ciyaarihii markaasi xarashi madaxda iyo ciyaalka xaafadda soo ciyaaray dib ugu laabtay haddana lagu yeeray dib dama ayaa ugu soo laabatay kooxdii maxaa dhacay kadib shaaficiyow warta aniga macnaha maadaama aan aad isaga jeclaaday inaan xaafadaha aan ka ciyaaro kadib maadaama ay ciyaarteeda runtii ay macnaha xoogaa horumar badan ay sii samaysay aqliga siyaaday da'da xoogaa sii korortay isbedel ayaa dhacay kulli marka naadigaas sancada macaan isbitaal ayaa mar laba laga yeeray inaan tago oo macnaha ay jaanis siiyaan meesha ayaan tagay أنا وحنا لا معناها يعني جونيور إيو وحبا يقولون ربان دكان نيد بدن مهينين لكن مركان ويران سدح ويك أن توبرك لسمي معلنك ويري معلنك وينا وعبد اسمه نور بوديستي إن أن كوحدة ووين أن توبرك لسمي رنتي مركي وإيش جاي قلبتي وحصل سمين جري جونيوريس مع القوة وين توبرك أي هل ملكو السمين جرين mararka qaarkood subax ayaa tababar la sameynaa subaxii marka waxa sameynaa kooxda waaweyn bas marka maalmaha kamid wuxuu yiri tomorrow adiga waxa waaye waa inaad tababarka maada waaweynka la sameysaa marka waxa ay soo gashay marka iyadii diila ah inaan macnaha aan meeshii aan joogay aan ka sii fiicanahay marka tababarka ayaan la sameeyay macalinku wuxuu sheegay macnaha waxba asoo ii sheegay runtii laakiin waxaan ka dareemayay in uu ila rabo inaan heerka koowaad ciyaaro because isoon kula hadlino saasan ku sameeyna aan ku dhigin laakiin waxa ka garanaysaa qaabka tababarka uu sameeynaysa kooxda marka line upki meel la marsiyo kuwa kala dhinac la marsiyo adi marka koowaad lagu marsiyo waxa dareemaysaa in macnaha rajo laga leeyahay macallinka inta badan wuxuu isha ku hayaa juniorka soo kacayo because kooxdaba isbedel weyn ayaa lagu sameeyay oo ah kooxdan waxay ahaan jirtay waxay ka dhisnaa jirtay snay waa jawhar ka dhisnaa jirtay waagii hore marka muqdisho loo soo bedelay wasaaradda warshadaha laga dhigay ebel hal warshad ahaan jirtay warshada snay la yiraahdo sokorta sameyn jirtay ayaa kooxda lahaan jirtay marka waxa laga dhigay wasaaradda warshadaha oo dhan warshadaha dhan la hoos keenay marka muqdisho loo soo bedelay marka dad badan oo waxa jiray oo jawhar deganaa oo markii xamar loo soo bedelay yiri anaga meeshan kama ciyaari karno oo guryo loo ijaaray marka waxay ku qasbaneed macalinku ku qasbanaa in uu abuuro ciyaartooy juniors inay ka soo baxaan oo dadka magaalada muqdisho ahaa waa gartay oo qaranka markaas oo macnaha kooxdan matali doono kooxdan sancada matali waa gartay marka sidaas ayuu anagoo badan oo dad kala meelo badan laga wada keenay oo tababarka sameyn jirnay marka runtii iyadoo ninkii waa loo yeeray tababarka ayuu sameeyaa marka runtii maadiha ka gaarto waxa jiray dhalinyaro xaafadana la deganaa oo kooxo kale u ciyaari jiray oo naga waaweynaa oo national team ka ciyaari jiray markay maqleen sheekadii qaarkood ayaa ii yeeray runtii aad bay ii dhiirigeliyeen ka mid yahay Axmed Hilowle oo Kenya ahaa macnaha gaadiidkana ahaa ayaa ii yeeray wuxuu yiri niyahow mustaqbal leedahay waxaan aad macnaha maalin kasta waa ma taagan tahay sharadkan dheelis iska daay oo markaa toos u sameey waxa kale jiray Nuur Maxamed Amiin Shiina Badre Shiina Cabdi Xasan
saddexdaasna runtii waxa waaye qaybay kala haayeen qaybay kala haayeen si fiican iyo dhiirigeliyeen waxay iga celiyeen inay dhahaan niyow jooji tababarkaas toos u samey marka dhiirigelintoodu macnaha wax weyn bay ii qabatay inaan kooxdii waaweynay tababarka la sameeyo galab isa waxay sameynayeen koox macnaha dhalin rag lagu sameynaya ayay ahaayeen marka runtii dhalin raggii lagu sameynaya ayaan qayb ka noqday kadibna waxay noqotay in aan safto geemkii ugu horreeyey oo aan macnaha ciyaaro heerka koowaad aan ciyaaro weliba ciyaartii ay noqotay ciyaar markuu sheegay inaad maanta ciyaartii mise waxa waaye waxaa la sameeyaa example markii oo la ciyaarayo jimcada arbacada waxaa waaye ultima alamitadii ugu dambeysay marka kooxdu waxay ka kooban tahay ugu yaraan 25-30 qofood laakiin waxaa loo yeeri jiray keliya waxay ahayd maalinta ciyaarta 16 qof hadday u badato 18 qof marka maalintii waa la sheegaa inta qof oo imaanayo hebel ciyaartaas waa gartay marka ciyaarta inaan ku jiro laakiin buftana maalinta waa loo yeeray waa la yeeray haye weliba waxaan dareemayay arkayay inaan line upka koowaad aan ahay waa gartay aadan u dareemayay marka sida tababarka loo sameynayo yala ciyaarisay maalintii runtii ciyaar adag ayaan macnaha ciyaartii ugu horreysay iyadoo ay tahay ayaan koox adag la ciyaarayna madbacada ayaan la ciyaarayna waa gartay madbacada rag halistooda laga ciyaaray runtii aad u diyaarsan timekaas oo aad u fiican ay ahaayeen waa gartay dad wada fiican oo wada ciyaaraan waa gartay marka maalintii waan tagay line-upkii koowaad ayuu iga dhigay macalinka waa gartay lambarka hore jeclaa jirtay oo saygana waa laga wareejiyay waa laga bedelay batroolka 9 la iga dhigay laakiin macalinka wuxuu iga dhigay number 7 inaan ka ciyaaro waa gartay wengara shaafici aniga runtii mana isku afaanay laakiin aad ayaan u dheereynay orodkayga zaid u ahaa waa gartay marka macalinka markii uu aragay orodkayga badan ayuu booska iga bedelo wuxuu iga dhigay nin wengar oo macnaha baalka garabka ka ciyaara waa gartay marka maalintii koowaad waxaan ka ciyaarayay number 7 dhinaca midig ah ayaan ka ciyaarayay istaadiga muqdisho ayaan ku ciyaaraynay marka runtii waa adiga si fiican waa la buuxay maalinta waxay ahayd maalin jimco ah weliba oo shaqooyinka laga fadhiyo marka aad ayaa loo fadhi joogay marka rag badan waxaa jira marka kooxda ciyaaraya oo iga soo horreeyey oo marka qaarkood la fariisiyey marka aniga xoogaa maalinta kugu horeyso cabsiya ku galayso waxaa la dhahaa jornata nero ay dhahaan marka cabsi badan waa igu jirtay haddana markaan ciyaaray 20 daqiiqo aniga kulley waaba iloobaba cabsida iyo wixii aniga waxaan dareemayay reality markaan hadlo inaanan si fiican u ciyaaraynin markii la maray kambiyaha uu macalinka daris roomka qaladaadka ciyaartooydeenni iyo habkaan u ciyaarayna iyo uu ka hadlay anuu ilama hadlin macalinka ani ilama hadlin laakiin isaga waxay ka ahayd psychology ahaan ayay ka ahayd waa gartay marka oo waxay noqotay macnaha maaragtay inaanu macnaha aanan sii qalqalin waa gartay ayay ahayd marka waxaa dhacday ilama hadlin aniga ninka kale oo dhinaca kale ka ciyaarayay oo bidixda ka ciyaarayay nin la yiraahdo Cabdinuur Shiino ayaa bidix ka ciyaarayay 12 ka ciyaarayay ninka ayaa la bedelay waa gartay aniga wax ila hadlay male aniga marka xoogaa waxay soo gashay markii lagu naqanayo kalsooni badan ay gashay waa gartay runtii macalinka aan leela hadlin dadka canaanana ku jirin anigana aan is ogaa inaanan runtii ahayn markaas timekaas cabsi badan ay ugu jirto aanan ahayn dadka haddana macalinka ayaa macnaha hab wuxuu sameeyey oo macnaha ku talagal ah runtii qaybtii dambe marka la soo noqday naftiisa waxa laga yaabaa macalinka inuu maskax fiican isticmaal uu leeyahay maadaama marka koowaad ay tahay faranax uu jiro fiican ku ogyahay Brunuga uu fiican yahay xoogaha la hadlin oo macnaha maarta dhiirigelin ka talagal waa gartay soo marka macnaha uu ugu dayay garoonka ayuu ugu daayay Shaafici marka ciyaartaas qaybtii hore hal gool ayay nagu lahaayeen bacada hal eber kaambiyada ku marnay waa gartay markii la soo noqday goolkii barbardhaca runtii maalintii ugu horeysay iyadoo tahay aniga ayaa dhaliyay ninka buftana aad gool dhaliyay maalintii ugu horeysay ayaa waa geemka koowaad barbardhaca aniga ayaa dhaliyay waa maalintii ugu horeysay oo ana heerka koowaad ka ciyaaray ayay ahayd marka runtii farxad baldagaa ka horta waxay qaldan aad u faraxsanaa because marka farxadda waxaaba ka sii daran markay 5 daqiiqo dhiman tahay waxaan nagala dhaliyay 2 gool oo xiriir
haddana 2 gool xiriir waa gartay ayaa nagala dhaliyay 5 daqiiqo gudood وشان دقيقة ugu dambeysay ayay ahayd ma daashin iloobaya Ali Yusuf ayaa naga dhaliyay 2 gool ma daashin maxaa dhacay ودال ما جرى وحواي وحياة بدأ أسكت كنت عيارت عيار سفي أنا وعيارين مركي هور واقر كل اللي بقول أنا قلت لي مركي اللي سوبح عيارت عيار ما في أنا سدي حالي كل ماتي أتكو وذا حنا سنايين أنا وسوا أسك فرح سناي ودام جيم كوات ما دام جيم كوات أنا أقول لي وأسك فرح سنة لكن قاعد كلا وآدي وذا حنا سنايين واقر ونكسته وحس هذا ما لهن دريس روك مركي السوق علي مركي اللي بدلنا وحس هذا ما لهن أنا لكن فرحة إيجن بوقتي وابس كفرح سنة هذه أركي شافعي وماشاس أي كبلابتي إن أنا هيك كوات أن كعياره ماشاس أي كبلابتي وحي مالين تاسكدن بينا معناها ما حسوسته أنا أن داوع أما أن داوع كسر نقطة لقى ما أجي إن أنا فريستي وأن معناها لين أبكي كبحي ما حسوسته لأنه حنقطة طلارة الوحدة طلارة يا نقضي بنجي مجرن واقر وحواي وحيقبح هذا عبسدي وحان أسي عياره يسفي عنا يوم أسي عياره واقر marka meeshaas ayaan ka bilaabay habeenkii marka gool ah soo dhalisay in kastoo la iga badiyay oo kooxda ay wada xanaaqsanayeen soo laabateen oo xaafadii dhalinyartii kala u imaatay feedback helis muxuu waxay runtii really dhalinyarada xaafadda macnaha war maanta ninkii mushkiina ciyaaraya way soo wada aadeen kuwa xataa aan qaarkood mararka qaar aan aadi jirin xataa mar taageero way soo aadeen kuwa waxaa jira oo iska ina xumaan iska jecel macnaha waa la isforjeeyaa wajibeen marka ma sha Allah waxa waaye maalintii markaan ka soo baxayo xaafadda habeenkii la yimid ninkii faraxsanayaan ahaa kulay aad aan faraxsan dhalinyarada qaarkoodna macnaha way dhiirigelinayaan ninkii odaga hay habeenkaas gool soo dhaliyay kooxda waa laga soo badiyay haba iska faraxsanaado hawshiisa waa bilaabatay hawshiisa waa bilaabatay wax ka dambeeyay bijil lama gelin tolaar ma gelin waxaan naqday nin lagu xisaabtamayo kooxda dadka ugu fiican kamid ah macnaha ninka ugu fiican macnaha ninka dadka ugu fiican kamid ah ayaan naqday marka markaas geemkaas maalinta awal ciyaariseen horyaalku ahaa mise horyaalku ahaa waa bilowga horyaalku ahaa markaas waaba geemkii ugu horeeyay oo horyaalka lagu bilaabay ayuu aan ahaynba waa gartay marka wixii ka dambeeyna waxaa naqday marka nin online aba marka aan kaasi dhaxgalay waxa waaye kooxdan sancada markii ay jowhar ka yimaadeen isbedel weyn ayaa la sameeyo oo dhalinyaro muqdisho laga soo saaro oo kooxda ay noqdaan dad macnaha muqdisho ku nool oo isku filnaan karo dadkii jowhar macnaha waxay noqotay in guryo loo ijaaro marka qarash badan inay geliyaan marka waxay isku dayayeen kooxda inay anaga macnaha ay xamarnaga marka waxa ka soo baxay ciyaartooy aad u badan oo aniga aan kamid ahay ayaa kamid ahaa runtii oo ka soo baxday meesha dhalinyaradii jowharna waxaa ka haray kabtanka ninkii noo ahaa ilaahay u naxariisto Ismaaciil Cadaay wareejiyo Ismaaciil Kuulow أحمد عداوة معناها ما لابن لكن ويسي عيارين ودتك كهري أنت كلا لكن وحاب بدلي قالن يرو وضع عصوب ورنتي إلى يوم حريص الربيع سمطر معناها قالن يرو معناها قبل كبنادر وضعها عدي معناها شروع بيكولو عربي hal mar ayaan waxaan isla soo baxnay dhalinyaro oo wada fiican oo muqdisho ka soo baxay waxaan naqaanay markay waagii hore isnaay waxaan ahaa jirtay koox lagu xisaabtamo oo macnaha horyaalka kooxda ugu hooseyso waxaan bilownay in nagala wada cabsado oo cabsi badan ayaa bilaabatay in nagala cabsado runtii waxyaalaha ugu weyn waxaa ka mid ahaa horumarka uu nagu sameeyey macalinka ilaahay naxariista jannaas iyo cabdi budiste ونقول عاجري قلب يصبح على متن سنة وردتكان توصل على العيار دي بدل ما يوصل على هو لو فرجج نقول فرجج رنتي لكن تو بركي بدنا ونسينا هي هذا كانت إلا ذقع عبصد إن قلع عبصد هير كوح أو كست إن قلع عبصد أيان قارني هريالك أنت صعبة أنت هريالك حبينك مركي مجرى مال سو ما جرتين كوحها حبين أو مالنتي معناها ما دام هريالك وصعبة meel isugu yimaadaan oo lagu sheekaysto ma jirto habeenka waxyaalo kala duwan ayaa jiray meel xaafadda dhalinyarada isugu yimaadaan waxaa jirto meelo oo
macnaha biyutooyinka laisugu yimaado oo waxaa jiray in habeenada la aado luujina garoomada basketka marka footballkii nimankii ahaa caawa waxay isku arkayaan garoonkii basketka luujina ayaa la isku arkaa aragtidiinkaas waa jiray meelo badan oo saas oo kale la isku arka waa jiray marka alxamdulilah waxaa waaye wixii ka dambeeyey waxaa noqday in niyadda u degtay Serie A ah horyaalka sanadkaas marka xagee ka gasheen sanadkaas koowaad waxaan ka galnay maaqan waxaa naga hoosiyay maleeha 3 tiimaba naga hoosiyay maleeha dadku saasoo kor u soo kacday saasaba kor u soo kacnay really saasaba kor u soo kacnay runtii waxaa ku xigay koob General Daoud sanadka ku xigay ah marka inta horyaalka kale uusan furmin wadanka laba koob ayaa laga dhigaa sida FA Cup oo kale koob General Daoud ayaa la dhigi jiray iyo horyaalka marka koobkii General Daoud ayaan galnay runtii koobkaas macnaha meel fiican kama gaarin horyaalkii ku xigay runtii waxaan naqaanay koox laga wada cabsanayo yarkii noogu ciyaaraya number 9 wuxuu qaaday top score-ka horyaalka ayuu qaaday abal yiraahdo xaaji wuxuu qaaday top score gool dhalinta ayuu qaaday koox waxaan naqaanay marka laga cabsanayo waxaa bilowday in macnaha xulkii qaranka ciyaartooy awal aan laga wici jirin in xulka qaranka kooxdeena looga wacdo ayay naqatay haddayna qalaha junior qaran iyo haddayna qalaha qaranka waaweyn intaba in looga yeero marka saas ayay kusoo bilaabatay ilaa aan markii dambe ka galay qaranka waaweyn lee wacay qaranka amdarada tobanka lee wacay oo aan macnaha ciyaaro u aadnay wadanka la yiraahdo Mauritius oo macallin noo ah waa baxday marka Mauritius aadna waxaa adigoo macnaha qaran ahaan qaranka ahaa qaranka lagu dararto waxa waaye horta kooga hore waxa lee wacay qaranka waaweyn anoo yaryarka aan lee wacin ayaa qaranka waaweyn lee wacayba all the way marka qarankaas waxay aadi rabeen wadanka Kuwait ayaa waxa lagu qabanayay ciyaaraha wadamada islaamka ayaa Kuwait lagu qabanayay Shaafici wadankeena oo iska dhib badnaa waxyaalo badan ayaa jiray corruptionka uu iska badnaa really xilligaas corruptionka aad u badnaa waxa sportigeena dhulka galiba corruptionka ayuu ahaa anaga tababar ayaan Kool Stadium ku sameyn jirnay macallin Jarmal ayaa macallin noo ahaa waxa caawiye u ahaayay Cabdi Budisti iyo Ayuub qaranka Soomaaliya xilligaas معلم مستر هورستي حددنا ونول هاي ومرك قر كونتاكت أمر سميناه ولا ونول هاي وحوي أمباسطور أو شرمالك أو وضمد أفريقيا وهو هذا واقعت أحلى قرق سومالي هست قرق سومالي وتي مستر هورستي اللي يجري واقعت مركا نكاس أي توبرك النسينا هاي بوديستي يو أيوبنا وحيوها هاي عاويال شافعي أنا قلت توبرك سمينا إنه وترتن كاس وحلو قيب قلا وحياله بدل باسكت بول ورده maxaa la dhahay football oo la sheegay inaad u socotaan xagga loo socdo ayaa waxay soo direen macnaha waxa hadda aan ka leeyahay corruptionka iyo wax isdaba marinta waxay soo direen fax Kuwait ay dhahayaan qaybaha ciyaaraha aad qayb galeysaan noo soo sheega waa gar faxiska qofkii qabtay wuxuu u diray jawaab wuxuu yiri waxaan u qayb galeynaa only basketball soo gaamiyo soo wasaaradda waxyaalaha wadanka ka wasaaradda waa meesha ku soo dhacay waa gartay ninkii arintaas sameeyay ilaa hadda waa la qabsaday laakiin lama yaqaan wuxuu loo diray jawaab la leeyahay anaga waxaan uga qayb galeynaa basketballka bas marka anaga tababarka iska wadnaa ma ogin maba ku jirnaba waa gartay tababarkii la wada galab kasta waxaan tagnaa macallimiintii iyo naadiyaashii ma oga lama soo ifan galeen xiriirkii kubadda cagta kama warqabiyo tababaryaasha ma oga wasaaradda go'aan gaar wasaaradda xataa ma wasaaradda degaato waxay u sheegaysaa xiriirka ayay u sheegaysaa wasaaradda ma gaarin wax qofkii fakiska arkay meeshuu wasaaradda fakiska soo dhacay qofkii arkay ayaa jawaab bixiyey waa gartay annagoo iskaalmitayna ayaa markii dambe ay ogaadeen xiriir kubadda cagta in aanan annaga ka qayb gelin oo basketka kaliya ka qayb galayaan saas ayaa galab annagoo almitayna noola sheegay tababarkii aan ku joojinay waa gartay macnaha qaladaadka arrintii dib loo saxa marka wallaahi Soomaaliya qaladka haddoo kale fiiri waxaa jiro social media wixii qalad dhac lagu wada sheegayo xagga idaacad dawladda ay leedahay bas wixii la sheego waan wax aan afka laga sheegay maayn wax dal isdabagalayo wax kale waxyaalo ka waaweyn dhacay wax isdabagal ma leh runtii markaan qaybta dabagalna kaaga sheekayna wixii dhacay waa gartay
markii labaad taasi waa misgareysay waa misgareen kadib haddana isla macalinka ayaa wuxuu soo sameeyey xulka qaranka under 21 oo macnaha ciyaaraha olombikada inay ka qayb galaan rabo waa gartay kiyaa laygu daray marka maya isra reeb baa gelaysin marka isra reeb soo galo isra reebka ayaan gelay marka kii ayaan macnaha ugu daray Mauritius aade waxa waaye Mauritius ayaa aadnay haye waa safarka ugu horeeyay marka baxay ugu horeeyay baxay waaye haye Mauritius waxay nooga badiyeen hal iyo eber oo penalty ay naga dhaliyeen qaybta wax maray 10 daqiiqo ka dhimantay penalty naga dhaliyeen Muqdisho markii la yimidna waxaan ugu badanay 2-1 marka waxaan ku harnay away goal marka waliba Muqdisho markii 2-1 kaas ayaga badiyeen ayagana because hal iyo eber gurigooda nooga soo badiyeen anaga gurigeena waxaan ku badanay 2-1 marka away goal ayaa jira Soomaa gool wadanka nooga dhaliyeen marka saas ay tahay 2-1 ka waxaan helnay rigoore oo rigoorada ayaan qasaarin waa gartay marka niyaho aniga meeshaas ayaan ka soo bilaabay ilaa aan markii oo aad tagteen maxaa la dhahaa Mauritius aad tagteen halkii la dejiyay iyo qaabka la macaamilayay dawladda qaabkeedii waday wallahi niyaho wadankaas wuxuu ahaa wadan ay ciyaartoydii naga horeysay Soomaaliya aysan weli tagin ayuu ahaaba waa gartay Mauritius haddii aad maqasho Afrika ayay ka mid tahay laakiin jasiiradda weyn ee Madagascar markay diyaaradda ka kacdo waxay soconaysaa ilaa 5 ilaa 6 saac ayay usii soconaysaa waliba dhinaca badda ayay usii soconaysaa marka waa jasiirad laakiin waa jasiirad dhaqaale fiican dalxiiskana aad ugu wanaagsan waa gartay waliba markaan Nairobi ayaan transit ku ahayn Shaaficiyo afar beri airport ayaan jiifanaynay airport Nairobi ayaan transit ku ahayn oo aan waliba shamiitada seexanayn 4 maalin adiga macallinkii waa Jarmal Box waa baxay hotel iska seexday annaga iyo macallimiinta kale oo assistant ku ahaa Soomaaliga sabab hadda waxa waaye waa noola diiday inaan baxno oo magaalada galno oo hotel seexano wasaaradana ma ogolo qarasha laga rabaa waa gartay soo waddanka soo safar ku malay waxaas iyo qarashka bixina hotelada aad seexanaysid waa gartay bixinay male marka dawladda waxay kari weysay wallahi waxaan jiifnaan ku dhahay 4 beri shamiitada tuutiyaashana iska dhigana meesha cuntada nagala siinayo cuntadaas bisan ku lehen meesha wadanka dhibaatay soo mareen dadka niyo waa gartay marka xagga markaa tagtay waa dawladdiina waxa ugu darnaa marka waxay tahay diyaaraddii aan raacaynay ayaa last minute waxaa la yidhi diyaaraddii 6 boos bisaa ka bannaan in marka 6 qofood bisaa raacayso 6 kalena inta kalena diyaarad kale raacayaan saacad kadib aad baxaysay 6 qofood markaas waxaa la soo qabtay 6 baasaboor oo aniga aan ku jiro 6 ciyaartooy annagoo wax noola sii sheegay male waa qabsada baasaboorka baxa diyaarad albaabka la xiri rabo ayaan galnay 6 maalmood airportka 4 habeen airportka ayaan jiifnay maalintii airportka joogteen joognay already dad daalanayay waa badaalanahaybo maalintii 6 ciyaartooy annagoo ayaa diyaaradana aan raacnay wafdi nala socdo male lama socono macnaha situationka macnaha muxuu yahay 6deena kaliya intuu soo raacnay si oo boobsiis ayaa annagoo transitka meesha taagan diyaaradan galana la dhahay halkii aad tagteen gameka soo ciyaarteen diyaaradii aan raacnay hotel wali dibadda waxay tagteen diyaaradda markaan raacnay marka waxay tagtay wadanka la yiraahdo Komoro jasiiradda oo ayada daris la Kenya dhinaca badda Afrikada bari dhinaca badda haddana way ka duushay waxay tagtay meesha la dhahayo Madagascar diyaaradda 2 saac ayay joogtay kadib aan ka baxnay markaan ka degnay Mauritius runtii rag dad aad u wanaagsan oo xiriir kubadda cagta Mauritius ayaa meesha na sugayay oo taagnaaba runtii si fiican inoo soo dhaweeyeen hotelkii noogula talagalay kooxda loogu talagalay ayaa nala geeyay marka kooxda inteedii kale macallimiintii iyo wafdigii la socday iyo wixii dhan diyaarad kale raaceen transit waxay ku soo mareen South Africa waa gartay habeenkii marka anaga markaan tagnay maqribadii ayaga habeenkii waxay yimaadeen saq dhexe yimaadeen waa gartay marka maalintii ku xigtaa nasanay maalintii kale oo labaad ciyaaran galnay
waan galnay maalintii aan nasanay garoonkaan tagnay garoonka aan ku ciyaarayno inaan tababar yar ku sameynay maalinta ku xigtayna waa ciyaarnay waa garta marka moralkiisa waxa wallaahi da moralka anaga ma fiirinayn reality markaa fiirisid ma fiirinayn afarta beriyo meesha aan jiifnay iyo waxaa laga yaabaa wadamada dhaqaalaha horumarka wadamada waaweyn hadday ciyaartooydooda aan ahaa lahayn waxaa laga yaabaa inay dhihi lahaayeen qaylo badan ay ka dhici lahayd laakiin anaga waaba isaga faraxsaneenba waa garta aadaan isaga faraxsaneenba uma arkaynin dhib uma arkaynin ma xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaanan ciyaaraha iyo waxaas aanan hubigooda ahayn dad ehel ahayn ma loo dhiibay ma wasaaradda ayaa macnaha ma dadka cadaadis ku haysay oo waxba aan ka warhaynin dhibaato waxay ka imaanaysa horta dhibaatada ugu weyn waxay ahayd wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo aanan xil iska saarin markaan ka hadlayo kubadda cagta ma ciyaaraha dhan aan xil fiican iska saarin maxaa loo eedeynaya ma qofka haya ayaan maya waxaa la rabaa maya haddadaanan soo aan ku sheega haddadaan la joogo waxaan fiirinayay miisaaniyad wiigi dhawaa ama maqaan 3 biri 4 biri koor miisaaniyadda dawladda Soomaaliya oo wasaaradaha dhan markaan arkay waxaan arkay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga 1 milyan lacag ka yaraa loo qoyday sanadka dhan waa gartay wasaaradda waddanka Soomaaliya dhalinyarada boqolkiiba 70 waa dhalinyaro waa gartay meesan ahaan dhalinyarada in macnaha shaqo abuuris iyo hawlo badan in loo sameeyo wacyigelin loo sameeyo barnaamijyo badan loo sameeyo isboortigooda lagu horumariyo marka waxaan ka wadaa marka waxay tahay weligeed saas ay ahayd wax horumar laga sameeyay ma laha waa gartay waxaa jira horyaal furan lacagta horyaalka stadiumka lagu galo qasnada dhexe dawladda toos ugu dhacayso wasaaradda isboortiga nafteeda ma jirin ma arkin wasaaradda isboortiga markay baxayaan ciyaartooy ayay dalbanayaan waxay ka dalbanayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan baxno waxaan u baahanahay tigidho marka waxaan u malaysaa marka wasaaradda isboortiga inay aad ay ugu ciyaartaasi maalintaasi waa la diga soo badiyay waa soo laabateen haddana soo noqonay dib kale aad soo marteen markii dambe waa mu badnayn waxaan joognaa umaleynaa 3 beri ma amse 2 beri ayaan airportka joognay haddana waxaan joognaa airportka Kenya Jomo Kenyatta because waxaa sugaysaa diyaarad maalin kasta ma tagto diyaarad maalin kasta ma tagto Nairobi waxaad tegaysaa week hal mar ay tagtaa Somali Airlines week hal mar ay tagi jirtay marka maanta very example markay arbaca tahay oo diyaaradana ay imaanayso macnaha qamiis ay imaanayso adigana arbaca aad tagtid maalinta waa tagtay Soomaaliya laakiin ciyaartooyda qaranka magaca Soomaaliya wataan inay meesha dhex seexdaan ay meesha away maalin ay joogaan hadana sii joogaan wax kaliya noola sameyn kari waa in hoteelo nala seexiyo inta noola sameyn kari taasna ma la awoodin taasna lama wadanka dhan laba diyaarado lahaaba wadanka dhan lahaa maanta hadda waxa laga yaabaa Kenya inay 10 flight ay tagto isbedelka hadda jiro waa laga yaabaa Kenya inay 10 flight ka badan inay tagaysaa laga yaabaa hadda laakiin ma jirin waa gartay waa soo laabateen markii dambana saasa ciyaartu dhacday saasaad ka harteen maxaa dhacay wixii ka dambeeyay waxa horyaaladiina iska ciyaaraynay kadibna alaabtii qatarteeda balaasibil warkaa bilowday inta soo bilaabay sawirka uu bilaaban waxaa jirtay mar in gobolada la aadi jiray ciyaaraha gobolada ma baxday weli gobolada ma aadeen Shaaficiyo horta aniga weli gobol uma ciyaarin laakiin way dhici tagtay waa gartay 84 xamar ayaa gobollo waxaa jira gobollada Soomaaliya way kala ciyaartooy fiicnaayeen ciyaartooyna gobollada ciyaartooyba ma haystaan ciyaarihii gobolladana waa laga rabaa inay ciyaaraan marka ciyaartooyna ma qabaan marka waxay samayn jireen Muqdisho intii yimaadeen ciyaartooy ka wada jireen marka oo laakiin lama rabo inuu seera ahaado lama rabo gobolka ninka ciyaaraya waa inuu seera ahayn sharciyo waxaa jira marka ninaan gobolka u dhalanin ama aanan ka shaqeyn haddana ma ciyaari karo waa gar dawladda markaas soo saar because waxa jaanis la siinaa ninka gobolka u dhashay inay soo saaraan waa gar waxaas ma ba arkaan aniga lan roobala noola keenay anagoo badan ayaa xamar nagala waday inaan u ciyaarno gobolka la yiraahdo Galgaduud waa gar waxaan la geeyay magaalada Dhuusamareeb college ku yaal ayaa nagu la xireeyay meeshii ayaan tababar ku sameeyay ciyaari gobolada marka la gaaray ciyaari gobolada waxa martigelinaya marka isla iyaga Dhuusamareeb waa gar ciyaari marka la gaaray
waxay bilaabeen barnaamij cusub aan jiri jirin garsoorayaasha ciyaaraha oo dhan ayaa waxaa la keenaa meel la fariisinaa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta gobolka hiiraan soo safta hal loo yeerinaa garsoorayaasha la diina mintaqaaniin ama reer xamar yahay haddii ay ku yiraahdaan ninkan muqdisho ka yimid ma ciyaarayso anaga marka intaan ka wada nimid muqdisho aan ka wada nimid sooma gobolkii markii garsoorayaasha dhigay waa la yeeray maxamed cumar waa la qaanaa wixii oo dhanba qof badbaaday male maxaa dhaca marka waa noola diiday waxaa iigu daran aniga tan iigu darneed waxay ahayd isla markii waa layla orday aniga iyo nin la yiraahdo Cumar Madaxey waxaa nala geeyay qaybta ciidamada 11aad madaxa layga xiiray koofiya la geliyay askari waa in la yiraahdo oo aan ciyaaro hadana waa isla markii ka gaarsiiyay galabtaan ciyaara subaxii waa gartay tan iigu dartinta xataa waa layga xiiray markaas tasra la sameeyo arxas ma jiraan alla ninkan waa diidna waa gartay marka gobol markaas aan tagay وانا ليديدي mana ciyaarin laakiin horaan basiir ah ka galay aniga marka ciyaarada wala laakiin markii la suuq yimaado waxa weyn xiisay lahaayeen oo dadku way badbaxayeen oo gobolada kale way ka imaanayeen soma xamar waa laga baxayay laga tagay wallahi horto shaaficiyo dadku dawladda waxyaalihii ay sameysay oo ciyaaraha gobolada wixii ugu fiicnaa ay ahaayeen ciyaaraha gobolada wuxuu sameynayeen isdhexgal aad u fiican laakiin lacagtina bixilay ma gobolada waxa ku fiican ma airport jiifinay taas waa tii dawladda moogtahay laakiin tan habka loo sameeyay fiiri tan hadda hotel lagu jiixinayo ma jiro ciyaarihii gobolada gobolka markii gobolka uu tago ciyaartooydan waxaa loo geynaa family ciidaa loo geynaa leeyahay hal wiil idin keenayna hal gabar idin keenayna asad la joogaysaa ayagaa la joogaysaa inta ciyaarahaas ay dhacayaan waa gartay markii xagga la isku soo reebo muqdisho la imaanaa soo ma haddana gobol kasta haddana degmow leeyahay Soomaaliya xaafadeena Wardhiigle oo kale waxa u badnayd waqooyi galbeed macnaha qof lagu keenaa qofkaas marka waxa meesha ku jira waxay isdhexgal aad dadkii macnaha walaalka uu naqana ninkii lagu dhaxgeynaa marka aad iyo lagu soo dhaweynaa waxaa galeysaan maxal dhahayay dad ba iska guursaday isdhexgalki dad baa iska guursaday dad baa hadda iyo muddo ka soo wareegtay ilaa hadda walaalo ah waa gartay oo runtii ciyaarahaas gobolada walaalo ku noqday oo family ah oo guriga seexanayo oo cunto ka cunayo oo ilaa hadda xiriirka leh macnaha nin maanta ka soo baxay magaalada Hargeysa marka keentid macnaha xamar aageysid xaafad macnaha xaafadaha xamar kamida ee guri oo suuligiisa arkin ogtahay gobolada xataa xooga inay kala dhaqan duwan yihiin runtii oo la noolaado nolola ka imaanaysa meeshaas waa gartay qaar iska guursadeen qaar asxaab waxa ka daran marka mataqaana waxa qaran dheelay meesha ka soo wada bixin 70% waa gartay 1900 ciyaar gobol waxa la bilaabay sanadkii ugu horeeyay la qabtay wuxuu ahaa 72 ayaa ugu horeysay waa gartay ciyaaraha gobolada markii la qabtay waxaa jirtay ciyaartooy gobolka markuu dheelay asoo ciyaarihii kooxihii heerka kuwaad ciyaarin national team hore laga waa faa'iidooyinka laga helay ay kamid ah haddayna qalaad kubad cag ciyaarahaas markii intii socdeen ma jireen mar labaad oo kale oo dibad u baxdaan maya ma jireen kii ugu dambeeyo waa wada kale xaaladdu waa gabagaba iska ahayd xaaladdu waa isku xumeed kooxaha haddana waxa ugu daran waxay ciyaarihii waxaa la dheelaa bariga bartamaha Afrika waxaa la leeyahay dhaqaale ma hayno sanadkan waa ka baaqan dhaqaal dara loo baaqa jiray hadda fiiri waxa ka helaysaa Google-ka waa ka helaysaa annaga waxaan ku biirnay ciyaaraha ururka bariga bartamaha Afrika la yiraahdo Sakafa 73 ilaa 90 oo dagaalada ay dhaceen meeqa maran ka qayb galnay waa wax yar waa dhaqaal daro intaas ma tigidda ma hayno inta xagee lagu qanaa Zambia ma gaari karno lacag uma hayno inta lagu qabanaa Malawi ma gaari karno lacag uma hayno dhibaato weyn ayaa jirta marka isboortiga wax weyn uma ahayn dawladda isboortiga wuxuu u baahan yahay dhaqaale waddanka horumar u gaarsiisanayo qurux badnaayo aniga waxaan aaminsanahay qaabka hadda ay u shaqeeyaan example hadda macnaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxyaalo badan isaga xumaadaan laakiin hadda qaabka u shaqeynayaan wuxuu ka fiican yahay kii hore sidii u shaqeynayaan ayuu ka fiican yahay maxaa dhacay hadda waxaa jiro kooxaha heer koowaad heerka labaad heerka saddexaad
kooxda macnaha markii horyaalka la dheelo kooxba hoos u noqonayso CRB noqonayso kooxa soo korayso anaga waxaas waa la joojiyay ma jirin waxaas ma jirin ciyaaryahanka hadda markii uu koox kontraad ayuu kula ciyaaraa sanad 2 sano heshiis ayuu kula ciyaaraa anaga heshiis wax la dhahay ma jirin kooxda markaa ka mid noqotid haddii ay ku nacaan way ku eryayaan xuquuqna ma lihid haddii adiga aan nacdidne ma lagu siinayo warqadda oo fasax wax ku siinayo ma laha adiga iska dhaaf leewaa marka waxa aad u adkeed sharciyadii ma jiraan garoomo ma jiraan maanta hadda Soomaaliya waxa ka bilowday maadaama adduunka horumar gaaray 5 side oo macnaha roog la dhigay oo laga soo baxayo ciyaartooyda kaba ku ciyaarayaan waxa u malaysaa yiddiile aad u fiican qalabkii sportigii meel gooni private samaystay ilmihi ay ku ciyaaraan oo macnaha lacag ka ahaato laakiin 24 saac garoonka uu furan yahay oo la ciyaarayo waa horumar weyn waa mahadsantahay qayb kale oo saddexaad ayaanu soo imaan doonaa aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Shaaficiyow macnaha runtii waxaan ku faraxsanahay waay waxa soo xasuusisay ma sha Allah aad ma santahay saaxib oo tahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkeena xilligan waxaan jeclaan lahay intaas inaan ku soo gabagabayno haddaan ugu cusub tahay daawade subscribe-ka iyo sharta haddii Ilaahay raada xageena ayaanu ka sugaynaa barnaamijyo kale haddii aad jeceshiin inaan idin saama qaadno nana waa inoo soo sheegaysan haddii Ilaahay raado muftin heerkiisii koobaad halka ka soo bilaabay hadda waxay inoo maraysaa bugla ayuu ka soo bilaabay ciyaalka xaafadda waxay inoo maraysaa inuu qaranka u galay gobolladii la tegay kadib qabtaa dhacday ninka la yidhahdo muftin war ma ka hayaa Soomaaliya xilliga ku soo tagay kadib in dawladda isxiga ay ka dhasheen war ma ka hayaa madaxweynayaasha la magacaabay xilligaas magacyadooda wax ma garanayaa xiriir ma la sameeyay dib ma ugu laabtay wadankii ma jirtaa wasaaradihii kala duwanaa ee la magacaabay xilliyadii kala duwanaa kadib burburkii inay la soo xiriireen in kale barnaamijyada dambe hadduu Ilaahay yiraahdo ayaanu muftin ku waraysan doonaa adinkana waa adiga mahad celinaa la joogaynaa kulan kale waxaan digtaynaa sidaa iyo nabadgelyo